ورشة كوكا كولا 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 SBI كوكا كولا كوكا كولا كولا ورشة كوكا كولا 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 SBI كوكا كولا كاني كان ويو ككافون هي خلا كاني كان ويو ككافون هي خلا shirkadda wax soo saarka noocyada kala duwan ee sharaabka iyo biyaha dasaan ee SBI Coca-Cola ayaa magaalada Burco ku qabatay xaflad ay abaalmarin ku guddoonsiinayso 48 qof oo ah guuleystayaasha barnaamijka Fariindir oo guuleyso barnaamijkaasi oo ah barnaamij ay shirkaddu macaamiisheeda ku siinayso hadiyado kala duwan kalsooni adoo ku qaba kuweeco kolkaad ka badaaduga munaasabadan abaalmarinaha lagu guddoonsiinayay guuleystayaasha barnaamijka Fariindir ee guuleyso ee shirkadda SBI Coca-Cola oo lagu qabtay magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer محمد عبد الله إبراهيم ماير كحجينك دجمة برعو محمد حسن جامع قدوميها ركت جناسي قبل كتوكلير مدح حرير كدوينها شركة تلصوم يقار كميدا معاميش شركة SBI كوكاكولا كبو وين كافيين كبو كوكا كبو وين كافيين كليلكو aynaga jabeen ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay madaxa iibka iyo suuqeynta ee shirkadda SBI maxamed cabdi qowdhan waxaana uu ka sheekeeyay barnaamijkan iyo sidii absamida lahayd ee uga socday magaalada Burco barnaamijkani wuxuu ka mid yahay barnaamijyada aan u qabanno macaamiishayada ku kala nool gobolada Soomaaliland waana barnaamij soo bilaabmay 20kii January oo la bilaabmay maalintii carwadii sagaalaad ee rugta ganacsiga ay ku qabatay magaalada Burco barnaamij la soo bilaabmay weeyaan barnaamijku wuxuu socon doonaa muddo bila hadwa la yiraahdo waa abaalmarintii koowaad qaybtii labaadna way noo arsantaa hadwa la yiraahdo waxaanu qorsheynaynaa in qaybta labaadna ay noqoto bisha March koodeeda hadwa la yiraahdo sida loo guuleysanayaa waxa weeyaan in caagada sharaabka ee Coca-Cola ama Fantooyinka ama Sprite-ka furkeeda huruuda xarfaha ku hoos qoran qofku uu u diri karayo lambarka gaaban ee 327 oo ah telephone marka qofku fariin jawaab u heli doona jawaabtaas oo aad ku maasan tahay inaad ka qayb qaadatid barnaamijka waana lagu la soo xiriiri doonaa marka waxa ka qayb qaatay 2450 qof ayaa ka qayb qaatay muddada uu socday waxa guuleystay 84 qof oo kala helay hadiyado kala duwan oo qasaalada leh talaagada leh mobil leh laptop leh lacagina ay ku jirto 84kii guuleystay waxaan jecelahay in halkan ugu la sugan yihiin qof walba waan la xiriirnay kaarkiisina uu qaatay unayna la jooga marka waxaanu sameyn doonaa qolada farsamada ayaa lambarada diiwaan gashan si baqtiya nasiib halka ugu rangarayn doonta qof kastaba waxa uu soo bixi doona wixii uu nasiibkiisu siiyay annagu waxba dadka uma doorino laakiin systemka bartaa yaala ayaa qofka iyo haadiyadu nasiibkiisu helay isla doonanaya marka qofka markuu soo baxo waynu u yeeri doonaa waynu iman doonaa haddii la yiraahdo waynu guddoonsiin doonaa
dhammaan macaamiisheeda ku nool Burco waxaan leenahay barnaamijku uu soconayaa tan waa qaybtii koobaad qaybtii labaad oo inoo harsantahay haddii la yiraahdo waxaynu haysanaa 15 cisho oo dambe qof walba furka sharaabka ee uu cabo imaka waa lacag waa haadiyada kala duwan qofkaasi ka faa'iideysto yaanu fursadaas ka khasaarinin furkan ayaanu iska tuurin shirkadda SBI Coca-Cola mar walba gobolka Togdheer aad bay u garab taagan tahay ma aha mashruuci koobaad ee aanu ku soo celino macaamiisheeda ku nool gobolka Togdheer waxa jirtay in aanu biyo ballaarin u sameynay qayb ka mid ah xaafadaha Burco oo inaga gashay lacag lagu qiyaasay $700,000 marka waxay ka mid tahay wax ku celinta aanu ku celinino macaamiisheeda ku nool Burco dhamaantiin nasiib wanaagsan baan idin rajaynayaa. dhinaca kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer maayir ku-xigeenka degmada Burco iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka waxaana ay u mahad celiyeen shirkadda SBI Coca-Cola iyagoo si gaar ah maamulka shirkadaasi ugu amaanay inay si weyn uga qaateen biyo-gelinta caasimadda gobolka Togdheer ee Burco oo ay shirkadu ku bixisay adduun lacageed oo gaaraya $700,000 runtii nasiib ay yeelateen maadaama 3,000 qof oo dhow ka soo dhex baxdeen waxaan idin hambalyeynaa inaan dhahatiin macaamiisha ama isticmaalayaasha shirkadda SBI ama Las Group iyo company Las Group kulley waxaan filayaa mashruuc intii aan joogan garanayo mashruucii ugu weynaa ee laga fuliyo gobolka Togdheer ama magaalada Burco ee shirkad private ay fuliso Las Group baa fulisay waa tiibay ahayd biyo ballaarinta arrintii maalintii aynu qabanay dad kumanaan ku dhaafayo maanta reer Burco ayaa gamcahooda biyo ku maydha DByadu badnaa saddexda DB bay haayeen iyo qayb ka mid ah xaafadaha magaalada Burco waxaanu ka markaati kacaynaa annagoo mas'uuliyiintii gobolka iyo degmadu maanta ay fadhiyaan shirkaddan SBI inay ka mid tahay shirkadaha waaweyn ee qarankani leeyahay waliba tacabka iyo ganacsigooda inta badan u adeegsadaa bulshada ay ka dhex ganacsanayaan ama dalkooda dib ugu soo celiyaan waxaan xusuustaa xilligii 2014 sanad kadib markii aanu mas'uuliyadda la wareegnay degmada golayaashayada imika uu ka sii dhamaanayo baanu tashanay golahaanu fadhiisinay ballanqaadadayadii xilligaanu ballanqaadinay baa waxaanu ka fikirnay war waxaynu u baahanay inaynu sanadba wax qabanno arrimaha ugu badan aanu ku ololeyn jirnay waxa ka mid ah biyaha bulshada magaalada gudaheeda marka laga yimaadana waxaynu ugu hareereysnaa dad dan yar oo NDByada degan oo qaxootiyo aad u fara badan golaha iyaga wuxuu codsi u diray oo ka codsaday gudoomiyihii shirkadda Axmed Geele iyo shirkaddii SBI inay naga caawiyaan biyo-gelinta magaalada siiba dadka danyarta ee DByada waxa aan taariikhdu qori doontaa muddo aan sanad dabadeed Axmed iyo shirkadiisii inay Burco yimaadeen iyadoo biyaha magaaladu ay shirkado private siiyaan hareeraheeda in muddo sanadka bacdi isagoo 600,000 maalgashi oo biyihii kuwii danyarta ahaa iyo kuwii magaalada aan dawladdu gaarsiinayay intaba intuu aqbalay magaalada Burco markaati baa laga ahaa inuu soo celiyo waxaana ka mid ah oo aad ugu muhiim ah oo aan maanta taariikhdu ilaaweynin NDByada magaaladu ay leeyihiin aadan Saleebaan Cabdiqaadir Koosaar iyo meelo fara badan oo xaafado danyar ay baa maanta waxa guri walba hortiisa ku jira qasabadii mas'uuliyadda iyo maalgashigaana waxa kow ka ahaa SBI iyo gudoomiyaheeda Axmed Geele aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahayna waxaan leenahay barakeeyo shirkadda SBI waxay ka mid tahay shirkadaha sida laga dhawaajiyay ugu wax qabadka badan wax badan soo kordhiyay shirkadaha kale wadaniga insha Allah ta'ala waxa rajeenaya inay ku dayasho sameeyaan waxaan u mahad celinayaa guulaystayaasha runtii nasiibkoodii tijaabiyay ku guulaystay maantana halka u fadhiya inay qaataan nasiibkii ay ku guulaysteen waxaan leeyahay hambaliyo aad iyo aad baan
idinku hambalyeynayna shirkadana mar labaad iyo mar saddexaadba waan u mahad celinaynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan la shaqayn doono oo maanta aniga mustafa isku qabsanay furkiyo dee furka un baa la wada eeganaya waan filaya furka un hamoogaanina SBI Coca-Cola furkaas iyo wixii la midkaaba waan u mahad celinayo shirkaddan Las Group iyo SBI-da barnaamijkan maanta burco ay uga daahfureen run ahaantii oo annaga laftigeegu daraf aanu ka nahay tiknoolajiyaddan u fududaynay oo ah inaanu bixinno koodhka 337 oo iyaduna insha allahu tacaala waxa weeye ay sii marayaan waxa weeye message-ka telesom ay sii marayaan aad bay ugu mahadsan yihiin waa company runtii aanu xidhiidh ballaaran naga dhaxeeyo oo aad iyo aad runtii u ballaaran adeegyadeedana kuwoodana aanu isticmaalno kuwayagana isticmaalaan de koodhkan aad ku guulaysateen uu yahay kaariyaankii telesom ay xambaarsadeen insha allahu tacaala markaa shirkadda aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa abaalmarinta iyo dadkay guddoonsiinayaanna aad iyo aad bay qiimo badan u leedahay waa dhiirigelin waa waxqabad waa waxtar qalabka halkan ka muuqda dee waxtar badan buu u leeyahay bulshada muhiimadduna waxa weeye shirkaddu ama shirkadaha waddankeennu markay dadka dee ay wax ka helaan ay ka shaqaystaan waa inay dadka iyo dalkaba wax ku soo celiyaan taasay iyaguna faa'iido ka helayaan guulaystayaasha waxaan ku hadlayaa afkoodii marka hore dhammaanteen waxaan idin leeyahay hambaliyo mar labaadka waa arkaysaan waxaa wada gallay tartanka bakhtiga nasiibka aniga iyayna mayroon dhalay ayaa wada gallay waanu wada tartan ilaahay mahadii weeye iyagii ma helin anigii baa la yeedhay marka waxay yeelaysaan waxaan tusayaa oo tilmaamayaa cidda sidaydan oo kale waayeelkaana inaynu la tartami karno dhallinyarada iyo cid kasta oo horumarka ku jirta ugu dambeyn madaxa iibka iyo suuqeynta ee shirkadda SBI Coca-Cola iyo madaxda heer gobol iyo heer degme ee gobolka Togdheer ayaa halkaasi hadiyado kala duwan oo qaaliya ku guddoonsiiyey guulaystayaasha barnaamijka fariin dir oo guulayso ee shirkadda SBI Coca-Cola Coca-Cola Cola warshada Coca-Cola Cola 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 SBI Coca-Cola Coca-Cola Cola warshada Coca-Cola Cola 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 SBI Coca-Cola